nimankan mucaaradka ahi dhowr bay u qaybsan yihiin horta sideeda ninkan wixii keenay kow waxaa ka Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland xukuma laba waxaa ka Axmed Madoobe saddexna waxaa ka nimankaas hadeer uu kala jajabiyay oo mid walba ay gaarkiisa uu shirka jaraa'id u qabanayo marka ninkii shalay ay keenay maanta ka qaylinay horta ninkii shalay ay keeneen bay maanta ka qaylinayaan ninkaan nin cusuur guuraysaa buu ahaa kulligoodna waa ka soo maskaxday muhiimadda marka meesha qodobku yaallay wuxuu yahay ninkaasi doorashadu soo waday hadalka meel ku qoran waa in isimadii loo laabto erga doorashadii horeena ninkii qaabeeyay weey haddana midaasu soo wada meelo badan buuna ninkaan ku daaban yahay ummadda Soomaaliyeed nimaysaa u soo ogtahay ma waa ninka laga shaqeeyay mar labaad in la soo celiyo maamulku sidoo ku dheemeystirmi lahaa waxa weey haddii caasimadii la saacana qaadatay oo xubnihii badnaa la saacana qaadatay in madaxweynuhu uu sanaag ka yimaado maadaama sanaag wali Puntland aw xageeda jiro in gobolkii qaboobaa iyo badiiba la gaaray maamulkiina dhamaystirmo inuu qof reer sanaagihi meesha loo doorto bay ku habboontahay waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland 6 milyan oo kabista ah bil walba waa qaata hal bil ma maqnaato lacagtaas oo federaalka timaada lacagtii hooyada iyo dhalaanka iyo lacagtii ciyaalka yaryarka ubadka wax lagu bar lahaa lagu badbaadin lahaa Saciid Cabdullaahi Dani waa diiday macnaheedu waxa weeye kaliya aan noolaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan daawada ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan uga hadlayno asalka khilaafka madasha mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya wareysiga maanta waxaa marti noogu ah Daawud Muuse Faarax Cismaan oo ah aqoonyahan ku xil dheer arrimaha geeska Afrika iyo sidoo kale Soomaaliya xaaladda siyaasadeed Daawud soo dhawow milgo aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii waydiin mahad celinaya waana ku dhowahay barnaamijka waana mahadsantihiin shaqadaad ummadda u haysaan aad iyo aad baan ku bogaadinaya waayahay haddii aan ku bilowno khilaafka madasha mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa sababay in mucaaradkii hore u mideysnaa laba u kala jabaan bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta balintaana gelin mucaaradka kala jabay waxaa ka horeysa nin cusuur guuraysa oo mixnada oo dalkan hore loo soo tijaabiyay oo waagi xataa Cabdullaahi Yuusuf ururka midowga hawiye madax ka ahaan jiray oo weligiiba aan wax khayr ka shaqeyn oo markii dambena beelaha isku diri jiray xasan sheekh maxamuud ninka noocaas ah baa horta dalkii loo doortay waana nin cusuur guuraysaayo doorashada Soomaaliya oo erga doorashada aragtay oo ayaanta dhaweyd lagu kala dhintay oo dhibaatadii halkan ka dhacday Puntland xataa aad ogeyd oo madaxweynuhu qolintu ku xareystay dad isagu iska qortay doorashadii sidaa masquumaasqo wahayd oo sidaa u liidato oo sidaa u farsamay waa ninkii qaabeeyay hadeer mid ka liidata buu soo wadaayo qof iyo codka kani waa wuxuu hawada ku maray mid ka liidata tii uu soo wada ninkan waa nin shisheeye ku daaban mixnada Soomaaliya laftigeeda de meeshaas caasimadii ay tahay luga badan ku yeeshay ardadiisi baa dhinac socota ardadii isagu uu wax baray oo tababaray baa horta dhinac socota horta ninkaasi wuxuu sameeyay tiriibkii horena waa ninkii laga fariisan waayay markii ninkii hadeer isaga ka horeeyay wuxuu dawladnimada buu farmaajo qaabay wixii uu qaabeeyayna ninka xun buu ahaayo markii dambena sidoo burburiyay oo ciidankii iyo dalkii shabaab ugu wareejiyay oo dhibaateeyay de wax muuqata weey nimankan mucaaradka ahi dhowr bay u qaybsan yihiin horta sideeda ninkan wixii keenay kow waxaa ka Saciid Cabdullaahi Dani oo Puntland xukuma laba waxaa ka Axmed Madoobe saddexna waxaa ka nimankaas hadeer uu kala jajabiyay oo mid walba ay gaarkiisa uu shirka jaraa'id u qabanayo marka ninkii shalay ay keenay maanta ka qaylinay horta ninkii shalay ay keeneen bay maanta ka qaylinayaan ninkaan nin cusuur guuraysaa buu ahaa kulligoodna waa ka soo maskaxbadiyay markii dambena farsamo iyo shisheeye kalkaalnimo iyo farsamooyin buu isku xirxirtay meesha dhexdeeda bayna ka dhalatay waagii hore oo dhan dibad wareeg buu ahaayo waa looga cadcada laakiin hoolka dhexdiisa arrin ka dhalatay oo madaxweynaha Puntland hogaaminayay iyo madaxweynaha Jubbaland buu sideeda ninkaan ku soo baxay waan ogtahay
dee qofkii saddexaad buu ahaa laba qof baa ka horreeyey goortii la galay doorashada wataynu ka warqabnay meesha dhexdeeda marka buu ninkan abaabul fiican ka sameeyey oo xasan cali khayrana reebay labadii kalena ku dhaafay waana wax laga shaqeeyey goortay arkeen nimankan ay dee farmaajo daniyo aada isu jeedanayay axmed madoobe oo u arkayay farmaajo malka mowdkiisa inuu yahay ninkaasi wuxuu sameeyey ninkaani hadduu isagu waa soo tago halakan u yimi waa iyadaa meel walba xiranta waa iyadaa dadkii inuu baktiyo ay ku dhow yihiin mashaariicda xunxunka ah waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland 6 milyan oo kabista ah bil walba waa qaata hal bil ma maqnaato lacagtaas oo federaalka timaada lacagtii hooyada iyo dhallaanka iyo lacagtii ciyaalka yaryarka ubadka wax lagu bari lahaa lagu badbaadin lahaa Siciid Cabdullaahi Dan waa diiday macnaheedu waxa weeye keligii aan noolaa horta waana danigaana macallin waxa uu ah ninka noocaas ah oo sidaas u farsamada xun nimankii kale oo halakan joogay federaalka joogay qayb wuxuu ku bahalkeeyay yiri xil ra'iisul wasaaraha diin ibaya qaybna lacag buu qaybiyay markhaantina waxa ku ah waagisay isugu duubnaayeen iyo saaka mid walba ay gaarkiisa way shirka jaraa'id u qabanay boontigu rabayn habeenkii dhaweyd waa u gaad aragti mucaarada lagu midaysay ma jiro oo lagu wada socdo annagana waagayen ma jiro hadeer ma jiro marka iyaga kala socdo way iyagii baa kala socdo waana meeshuu rabay muddada tan oo dhan wuxuu ka shaqeynayay markuu shirarka hadba meel soo istaajinayay waa nin munaafiqa wuxuu ka shaqeynayay in ay martiisa ay u meel mardo una meel mar markaanti waxa ku ah madashi midaysnaan jiro halka mowqif lahayd nin walba inuu shirkiisa jarayd gaar u qabsado waana hogti aw muddo raadinayo shisheeyana ay kala shaqeynayo horta ninkaan doorasho ka soo socota ma ay jiro hal doorasho ugu dhow markii aan aad u xuuraamay markii aan Nairobi iyo wareystay iyo meelaha siyaasadda Soomaaliya aadka loogu falanqeeyo wuxuu kor ka eegay madaxda maamul goboleedyada ilaa Jubbaland iyo Puntland waa misaal culus ismada say isku yihiin wuxuu ogaaday in lambarkii ismadu ay banaanka ka taagan yihiin labadoodaas markii meelo badan laga eego sidaa daraaddeed doorashada uu xasan soo wadaay ku darsi buu horta qaabsanaya meel fiican buuna u maraya xoog buu ugu darsan ninkuu farxi lahaa ninka ka nixi lahaa horta sababtoo ay tahay wadadu u mari lahaa waa in mucaaradku iskhilaafo waa in maamul goboleedyadu iskhilaafaan waa in ummaddu iska hor timaado wadadii marka waa u haya shisheeyana waayna kabaa iyaguna talada waxbay ku leeyihiinoo dee sanad ugu yaraan waa keenayaan oo shaki kuma jiro muhiimadda marka meesha qodob ku yaallay wuxuu yahay ninkaasi doorashadu soo wadaay hadalkaa meel ku qoran waa in isimadii loo laabto erga doorashadii horena ninkii qaabeeyey weeye haddana midaasu soo wadaa meelo badan buuna ninkaan ku daaban yahay ummadda Soomaaliyeed nimaysaa u soo ogtahay maaha waa ninka laga shaqeeyay mar labaad in la soo celiyo waxaynu inoo tala ku lahayna maaha waagi horena dhibaataduna gaarsiiyay waa loo hadeerna waa loo jeedaa marka waxa kanayna mucaarid ma ahan waa wax masaakiina sidii u soo jiidayay buuqaarna xil u sheegay qaar lacag u qaybiyay waana iska hor keenay markaantina waxa ku ah inay mid saaka u kala socdaan midowgaana meesha looga qaadi karaa ninka saameynta mustaqbalka siyaasadeed ee arinta ku yeelan karto de arintaasi way iska muuqataa markii uu ninku isagu guul ka gaaray inuu yagi iska hor keeno madaxda maamul goboleedyadana qaarna uu haysto mashaariicdii de inta uu joogay afka ka marinayo waa arkays madaxweynayaal ku faanay de ninkii diiday wixiisa ninkii jooga qaadanay maamul goboleedyadina wuu kala qaybsan yahay qayb buu haystaa nimankii midowga mucaaradka ahana waa uu kala furfuray oo midba meel buu istaajiyay isagoo dana siyaasadeed dadkan maaragtay interest bay inta badan waxoodu ku baaqay qaybina dhaqaale iyo dad loo shaqaaleysiiyay iyo waxbay raaceen qaybina teeta loo sheegay marka dan umadeed ma wadaan nimankan dan umadeed da awalba lama wadin inaga dhibaatada jidha hadda galbeedka Afrika nimanka dhalinyarada ay qabsay xasan sheekh maxamed wiilkiisa isleegi wiilka Burkina Faso aad aragtay inta uu xasan joogay buna joog meeshuu marinayana maanta waa aragtay warshadihii oo dhan ciidankii oo dhan shacabkii waa diiday wax shisheeya in dalkiisa soo gala arrimihiisa soo fargaliya meeshii ugu fiicneed buu marinaya marka 4 sano dalkan wax looga bedeli karaa sideedaba laakiin dhibaatada jidhay waxay tahay inuu danti guud baa waxa laga doortay danti gaarka ah dan iyo xasan sheekh maxamed maxay isku hayaan
ma dan umadeed bay isku hayaan dan gaaray isku hayaan wax cad wey mana ay qarsanay marka walaalow meesha awal baan dan guud oo leyn anigana igama muuqataba nimanka ciidanka ah haddaysan Soomaaliya wax ka qaban iyaguna hadii qaabada wax uga qaban lahayn waa dal qaybsan awal baa leena ka shaqeeyay federaalka markii leena aynu qaadanay federaalku waxaynu inagu lahayn maahan wax shisheeye keenay buu waana wax Soomaaliya lagu qaybinay haddana waa arkayso confederation iyo baa la sheegayaayo oo waa nidaam kale oo isaguna maamul goboleedku markuu rabo uu qaadan karo waliba inaga wasiirkeena arrimaha gudaha iyo dadka aadka ugu foogan uga shaqeeyay arrintaas ah in la qaato Jarmalka iyo America baa qaatay labadoodana cawaaqib xumo adag bay kala kulmeen marka dalka kan awal baa hore loo soo kala qaybiyay awoodii hadii haatan ay ahaan lahayd meel wax laga ururin karo ama gacan laga dhigi karana niyahu ma ay joogin awoodii waa firqsan tahay maamul goboleedyadii bay jiddaa goboleeday jiddaa meel wax kuma urursana muqdishona hadda waa u jeedaan oo sida ay xaaladeedu iyo waxa maalmaha lama qarsanay oo qabiil toosaba halka laga koonfur laga dhawaaqayay in siyaad baraad dalka uu haysan jiray aduguna dalka xoog iskaga hayso aragtidaas aad bay isaga soo ifbaxaysaayo kalsoonida caasimadda Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu qabeyn iyaduna meesha waa ka sii baxaysa marka mustaqbalkeena ilaah baynu leenahay sababtoo ay tahay meesha aan hadda ku soo waqtigeena Xasan Sheekh Maxamuud ka dhamaa ififaalad doorashada ma muuqato madax heshiisa oo maamul goboleedyadiina ma jidho iyo mucaaradkii iyo dadkii stakeholderska marka meel adag baynu hadda ku soconaa xilligii layna maamuli lahaa baynuna joognaa dhinaca kalena dee shabaabkiina magaalooyin badan bay soo qabsanayaan degmada taa waaba muuqataayo dalkiiba gacanta u geliyay kabad ku tukada baa qabsaday intii degmo ahayd oo halkaa ka masaajid Cali Gaduud Aadan Yabaal Moqokori maxaas maxaan ku yiraahdaa Kowsar ma waxbaaba harayba magaalada Muqdisho ku hareereysay waxaadna moodaa madaxweynaha iyo ninkaas waa isku reer waa nin abgaal ninka sidaas yeelaya oo deegaamadii oo dhasaal loogu wareejinay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa nin abgaal hubkii caalamku noogu deeqay iyo dhaqaalihii caalamku noogu deeqayna marka xaqiiqada isku sheegno madaxweynaha iyo qoyskiisa maamula marka macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu waagi horena saan ku sheegay hay'ad buu la shaqeyn jiray oo koonfurta ka shaqeysa dhinacna wuxuu hawiyo madax uga ahaayo ururkii hawiye midowga hawiye dadkii isagii caasha iyo dad caana bay ahaayeen gudoomiye ku xigeen bay isku ahaayeen Sheekh Shariif baa isaga ka fiicnaayo Sheekh Shariif ninka toos boqor ugu la diriray aragtina waa kula diriray kursigeena markii dambe isaga ku fariistay laakiin Xasan waligii munaafaqad buu ku shaqeysanay waxaana ma wahay haddana Jubbaland iyo Puntland dhibta iyo faragelinta iyo go'doonka siyaasadeed iyo midka dhaqaale oo saaray inkastoo ay ka dameeyeen in sida loo galo dadka deegaamada sida loo dhigaatay Saciid Cabdullaahi Dani oo meesha xukuma iyo Axmed Maxamed Islaan oo Jubbaland xukuma sababtoo ay tahay iyagoo dooran karay isbedel Soomaaliya u dooran karay haday farmaajo ay isla qaadan waayeen qof cusub iyo aragti cusub sideeda qof mar dalkan soo ama maamul soo la soo tijaabiyay marka dambe waxaad ka raadisay waa farxum waa mid maanta Puntland qaraarkeeda ay dhadhaminayso Soomaaliyana ay dhadhaminayso sideeda Soomaaliya niyo xaalad waxaan ku jirnaa wali maaragtay instability marka waxa la rabaa qofka Soomaaliya la dooranayay waa in qof cusub uu yahay waa inuusan meelo badan uusan xanjaysan waa inuusan dad badan iyo shisheeye iyo balaayo kale iyo saaxiib siyaasadeed culus uusan yeelan kaliya isagoo wali dantii guud xoogaa wali ka sii shaqeynay inuu isbedelkii kala yimaado waxaan u maleynaya in ummadda Soomaaliyeed ay 10 siyaasadeed u noqonayso inaan qof dib loo dooran doono waayahay waxaan galeynaa dhismaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya shalay waxaa la doortay gudoonkii baarlamaanka dad badan way saadaalinayaan halka ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka u jiheysanayaan maxay kula tahay maamulkaasi iyo dhismihiisii ni horta maamulkaas markaan ku soo koobo waayadan oo dhan faragelin iyo waxa ku ay dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo aniga shakhsiyan aan u arkayay ama
aan articles badan ka qoray in dadka iyaga la isu daayo shalayba iyagaa maamulka dowladda federaalka la xirtay iyagaa soo dhistay wax oogada laga keenay ma waa dad soo halgamay waa dad dhiig ka soo daatay waa dad dhib badan soo maray annaguna inta tabarteena waxbaan la qabanay ka deegaan ahaan anu magac dowladeed ku hadli maayo shacbiya waxbaan la soo qabanay markhaanti bayna lahayd meesha filla Soomaaliya ay mar walba u hiilinaysay maamulkii garaacay waa on the record codadkii baa duuban qoraaladii baa yaala waa documentary waa maaha wax been la isaga sheegay horta taariikh sidaas shalay markii aan eegno laba aragtiyood baa meesha ku dirirayay aragti waxay ahayd aragti muxaafid ah oo nimanka federaalku ay hongaan u yihiin iyo aragtida mucaaradka xildhibaanadii marka waxay qaateen aragtidii maaragtay muxaafidka hal nasiib xumo baa marka dhacday oo aad ayaan daro u ah runtiina macnayaal badan iyo wax badan soo saarday oo maaragtay xataa qabyaalad laga dheehan karo waana in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed uu maaragtay Dr. Aadan Kaliye maaragtay u hambaliyay arrin nasiib daraabe sababtoo ay tahay meeshii laba gudoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad iyo gudoomiyihii baa la doortay dawladdu ama madaxweynuhu hadduu cid u hambaliyeenay inuu saddexdoodaba u hambaliyeeyo bay ahayd gudoonka halkaa waxaa muuqata in labadaa kale looga guulaystay uu isaguna kii ama aragti qabiil ha ugu hambaliyeeyo ninkan waa nin wax walba ka suuroobaan waana dhanka kale waa ninkan kuu sheegay oo ururka midowga hawiye madaxda ka ah Xasan Sheekh Maxamuud ummadda Soomaaliyeed inay saa u ogaato waana urur caan inuu aragtiisa qabaliga ahaydna uu ku hambaliyeeyay iyo in dayadana cudad kalena ay ku jirtay oo ah aniga kana ay quseeyay labadan kale mucaaradkay u soo baxeen ama annagu shaqo kuma aanan lahayn marka Dr. Aadan baa guulaystay firdhiye iyo fanaanka guulaysanaya may meeshaan doorasho ka dhacday doorashana ka dhacaysa dadkii shalay u codeeyay Dr. Aadan mucaaradka bay qaybtood aadayaan codkana waa lagu loolamayaa doorashana la galayaa cid ilaahay u calfay baa qaadanaysa laakiin hal qodob baa jira halka qodob oo jiray wuxuu yahay maamulkaasi waxa la rabaa inuu dhamaystirmo dowladda federaalkuna wadada ku dhamaystirmi laha ma hayso waxay u ololeynaysaa qof gobolka Sool ka soo jeeda gobolka Sool hadeer bacidi ma joogto maamulkan sideedaba 1998 hadda la rabo halka in laga yagleelo dadkiisa halakan bay maaragtay maamulka ka dhisteen wax badan baa marka dhacay area distribute area waatay ahayd waatii la isku qabsaday waatii halganka badan dhacay waatii dhiiga la daadiyay gobolka Sanaag waa joogay laakiin Sool waa maqnaa Sool sidoo u maqnaa dadkii tashada baalay maamulku in la dhamaystiraa rabaa dowladda federaalku inay khalad sameynaysan ku sheegay maamulku sidoo ku dhameystirmi laha waxa weeye haddii caasimadii la sacaana qaadatay oo xubnihii badnaa la sacaana qaadatay in madaxweynuhu uu Sanaag ka yimaado maadaama Sanaag wali Puntland aw xageeda jiro in gobolkii qaboobaa iyo badiiba la gaaray maamulkiina dhamaystirmo inuu qof reer Sanaagihi meesha loo doorto bay ku haboonta waa aniga aragtidayda waa aragtida caafimaadka qabta annaga hebel hal la doorto hebel uma ololaynayo laakiin aniga aragtidayda ama si aragtida caafimaadka qabtay waxay tahay war gobolkii Sool hadduu reer Sool uu joogo ma idin la tahay in markaan aysan idinku haboonayno cidina idinka hayn mayso xafiiska markiina waa iimaanaysaan waana qodob dastuuriyan oo aad qorateen maanta qof reer Sanaaga si gobolkii qaboobaa iyo badil loo gaar inaad doorataan aniga ka shakhsi ahaan inuu maamulkaas intuu dhismo la turxaan bixiyo uu rabitaankuna iyaga ka yimaado waxaan ka jeclahay ma jiro shakhsiyan sababtoo ay tahay miiska Soomaaliyeed markii laba nin oo harti siyaasiyan ugu matalayaan anigu waxa weeye nin matalaad laba matalaadiisuna waliba aysan mid ahayn laba ay tahay waana sharaf iyo karaamo iyo magac ii soo kordhay inaan wax yeelan una ogoliyo shalay baan wax yeeli lahaa markaan wax taray ragaygii iyo ilmaadeertay walaalahay baa ku dhintay sheegana maayo ana isdifaacay oo maahan inaan iyaga abaal uga sugayo laakiin in talada la kala maqlaa fiican anigu waxaan xildhibaanada u diray codsiga ah
wareer sanaag maadaaba caasimaddii aada maanta sool ay noqotay oo aan ognahay priority-ga caasimadda iyo awoodda ay leedahay ama mashaariicda ay heli kardho ama ummaddii siday saldhig ugu noqon kardho war ma aydaan bixin waayene wiilkii maaragtay cabdi garaadba shalay uga hiilisa maxaanku yidhaahdaa doctor aadane war tanna ku darsado waxaad yeeshaan ku-xigeenkiina iyo caasimaddiina haddaad isku haysataan waxay aniga ila tahay in reer sool ay qanacsan yihiin madaxweynena aada ku raadiyay gobolkii qaboobaa oo barwaaqada badnaa iyo baddii anigu intaasaan ku darsanayaa ayna ila tahay waxaana rabaa inaan kuu sheego shalay waa laysu turaayey laakiin middaan madaxweynaha xubno badan oo xagga aaday baan hadhowda xagga aadi doonin loolan baana imanaya midowga musharaxiinta mucaaradka ah oo laascaano ka tartamayaana way isgaashaan buursanayaan ilaahay idankii toodayna ku meel maraysaa waxaana rajaynayaa qof sanaag ka soo jeeda inuu hongaanka u qabto si maamulkaa dhammaystirkiisu au u hirgalo waaya dowladda federaalka soomaaliya oo gacanta ku haysa dhismaha maamulkaas iyadu hadafkeedu waa qof taageersan sida firdhiya oo kale oo aada u taageersan aragtida xasasha marka ma kula tahay in taas ay dhici doonto yow haddii ay dhacdo horta anigu horey baan u sheegay midka wasiirkaaga meesha u jooga iyo faragelinta qaawan oo qurunkaa ee meesha ka wado ku hayso wax yadana dani ugu jidho halkaana maamul uga dhismaya maaha sababto ay tahay markayga horaanba kuu sheegayo maamulka waa dowladda federaalka waxaa laga rabay inay reer sool hadday ay caasimadii heleen xubnihii badsadeen inay madaxweyne ku-xigeen ku qanciyaan doorkii saaka u furnaa doorkaasu ah kadibna ay dhahaan waxaynu raadinaynaa gobolkii barwaaqada badnaayo sanaagaha iyo baddii in la gaaro marka waxaad moodaa munaafaqad kale iyo iska waxaan macnaysnayn oo kale meesha inay ku joogaan sababto ay tahay tii muhimka ahayd oo siyaasadda ay taa weeye